wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka oo ay weheliyaan agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ayaa maanta xadhiga ka jaray qayb cusub oo lagu soo kordhiyay cisbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa. qaybtaasi oo lagu baadhi doono xanuuno tiro badan, taas oo muddo dheer laga soo shaqeynayay sidii loo hirgelin lahaa. munaasabadda xadhiga jarista waxaa ka soo qayb galay dhaqaatiir la dhaho pathology una bordalis iyo kuwa reer Somaliland. ugu horreyn munaasabadda xadhiga jarista waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee cisbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa iyo Dr. Faduma Xaashi Iimaan oo si mugle uga qayb qaadatay hirgelinta qaybtaasi lagu soo kordhiyay cisbitaalka weyn. waxaanay ugu horreyntii u mahad celiyeen ururka kala shaqeeyay sidii loogu soo kordhin lahaa qaybtaasi cusub cisbitaalka. agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Dr. Maxamed Cabdi Xergeeye iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka Cabdinaasir Cumar Jaamac oo madashaasi hadalka isu dabamaray ayaa ka hadlay ahmiyadda ay u leedahay bulshada reer Somaliland qaybtaasi cusub ee lagu soo kordhiyay cisbitaalka. in laga setgareeyo ama laga bilaabo cisbitaalkii qaran ee wadanka qaybtii pathology-ga oo sida aynu wada ogsoonahay qayb aad muhiim ah marka la doonayo in wax laga ogaado xanuunada. qaybta pathology-gu run ahaantii waa qayb muhiim ah oo u baahan go'aan qaadasho iyo daaweyn inaynu maalinba istab gaadhno oo maanta cisbitaalkeennii guud ee qaranku ay ka dhisan tahay ama laga setelgareeyey qayb pathology ah oo aynu ka maarmayno ama inaynu privateka u dirno cadka la gooyey amba aynu ka maarmayno inaynu dibadda u dirno. aad iyo aad ayaad dhammaantiin u mahadsantihiin. qolada martida idinla joogtayna waan u mahad celinayaa. maalin aynu daafurayno in cisbitaalkii Hargeysa ama qaran ahaan wasaaradda horumarinta caafimaadka ku guuleysatay adeegyada caafimaadka cisbitaalka Hargeysa uu jiray lagu soo daro pathology. shaybaadho hore waan lahayn laakiin uu kala duwan yahay haweenan waa baahi aad u weyn oo qabnay ama culays dowladda wasaaradda horumarinta caafimaadka ku haysay in la helo ama in badan lagu dhaliili jiray inaynan ogaan karin xanuunka kansarka runtii in badan adduunyada dadkeenan guryahan uu ku soo badanayay oo in badan baa lagu caanayay inaynan awood lahayn inaynu ogaanada inaynan awood lahayn inaynu jidin karnaan kala saarno la soo eego. taasi guul weyn bay maanta alxamdulillah waxaynu rajaynaynaa mashruucan inuu guuleysan doono. mashruucan sida laga soo shaqeeyay muddo 5 sanadood laga soo shaqeynayay maanta wuxuu joogaa meel aynu isleenahay waa meel fiican baa la soo gaarsiiyey sababtoo qalabkiina waa inoo diyaar, shaqaalihiina muddo kooban baa laynoo tababaraya, shaqaalaha laynoo tababarayana qaar ka mida nabadda laynoo soo tababaraya. alxamdulillah arrintaas waxaan uga baahanahay inaynu mahad ballaaran ugu celino Dr. Paul Chufeini iyo tiimkiisa dadaalka faraha badan ay geliyeen qaran ahaan inay adeegyada caafimaadka laga caawiyaan. anigoo og baahida qaran ahaan aynu ugu qabno pathology-ga maanta aynu halka ku furayno farxad gaar ah oo intaan nasiib yeeshaan maanta inaan mashruucan halkan. Axmed Nuur Ciise Mohamed, Bulsho TV, Hargeysa.